Hey magacaygu waa Guray Muuse maanta waxaan halkan idinku hayaa barnaamij aad iyo aad idin ajabin doona barnaamijku wuxuu yahay Somali celebrities iyo sida u dhaqma intro kadib ayaan idin sii faahfaahinaya daawasho wanaagsan Hello kusoo dhawaada barnaamijka kabtanka YouTube-ka kusoo dhaweeyay maanta waxaan halkan idinku hayaa Somali celebrities-ka ama ma aan idhaahdee dadka Soomaalida public caanka ka ah iyo dhaqamadooda kow aan idinku bilaabay maanta waxaan halkan idinku hayaa fanaanada la yiraahdo King Jama oo ay YouTuber fada badan ku dhaganaayeen sababtoo ugu dhaganaayeen maxay tahay sababtoo ugu dhaganaayeen waxay tahay King Jama waxay maalin dhaweyd barteeda Facebook ama aan idhaahdee Instagram ka soo gelisay inay magaalada هاي عادي أدبر لي سلام يا ريترن سوشيال ريد داسندوف نشوف قبل دوناني حلو قبل داسندوف شامبيون إن شاء الله سيو نوفمبر. صارنا ودك جرمال كاي وقبلنا صح حفلة sidii caadiga la yaqaanay xaflad heesay ka qaasoo dad Soomaaliya farabada ka soo qayb galaya sababta YouTuberada ugu dhaganaayeen hadaba maxay tahay sababta YouTuberada ugu dhaganaayeen waxa weeye waxa lagu jira waqti corona oo waxaan ku dadku ay wada xidhan yihiin maskiyo iyo wax la mid ah wadanka Jarmalkuna aan idhaahdee wadamada kale uu ka sii yar xag jira xagga taxadirka iyo waxaas oo haddii aad tusaalahaan oo kale tareenka la korto waxaan kula adigoon bahalka Afrika u xidhnay wax lagu ganaaxaya maxaa 60 euro over 9000 marka YouTuberadu marka waxay ugu dhaganaayeen sababta ku kaliftay maxay tahay inay waqtigan ay qabatay xaflad qaar baa lahaa waxa jeebka ku xumaaday oo kiradii iska bixin kari weeyday qaarkan waxa lahaayeen maahire waxay u xiistay ama maahire ay ka fadhii kari weeyday barnaamijka la'aantii meesha intan barnaamijka la'aantii ka jirtay lama adduunka marka waxay islahayd malaha dadku waxay u baahdeen ama maahire ay u xiiseen barnaamij heesada loo qabtay bal aad noqotid qofka ugu horeeya qabtay laakiin kuma fikirin arrinkan corona iyo waxaas marka dadka qaar waxay arkay dadka Soomaalida xafladda tagay xataa uga digay oo leh ha tagina xafladdaasi hadii kala wada ku ganaaxay horta wax la isku ganaaxaya ma jirto oo xafladda hadii dadka soo qaban qaabiyahay meelaha amtiyowga waxaan ku xafladaha iyo waxa uu qaabilsana ma aroosyada iyo waxaas ama wixii aad meel faanshtantunka lagu qabanay meel la isku imanayo qaabilsan haddii ay ka soo register gareeyeen caadi way dadku ay tagi karaan laakiin waxa qasab noqonaysa inay intii xafladda lagu jiray dadku ay maxay afka wada xidhnaadaan Soomaalina dee uma maleynaya in lagu karayo afka xidha idinkoo meel isugu yimiday oo heesa ama maayna wax kala maaroosada waxay doontaa ahaatee adu meel isugu yimido wada dee meesha waxa la isugu imanayaaba waxa weeyaan Soomaaliya in dadkani isdhex galaan oo maahina haasawo iyo etc marka kusii daali maayada King Jama warkay waxaa kaloo arkay YouTubero iyaguna YouTube-ka dhexdiisa iska taageeranaya oo samaystay barnaamij la yiraahdo dil ama dooro barnaamijka dil ama dooro muxuu yahay dil ama dooro wuxuu yahay qof YouTube iskale oo YouTuber ah sidoo kale ayaa wuxuu soo urunaya maxaa ahaday YouTuber kale ciwaanadooda iyo waxaas markaas uu farta ku fiiqayo la YouTube-kan wiilkan uma codeyn ama gabadhan uma codeyn YouTube-keega ama wiilkan YouTube-kiisa uma codeyn ama xisabta kale waxaas anu ma fahmin sababta ay waxaas u sameynayaan horta Soomaalidu ma ahan inay isku xumaadaan oo iyagii is hor istaagaan oo ay yiraahdaan kan uma codeyn iyo kan kale uma codeyn ay waxa muhiim ah inay
mid walba waxaan ku halkii uu geli karo waxana waa xoolo gaalaada waxaan ku gacanteeda ma qabanayso idin ma odhanayso waxaan ku barnaamijyada idinku idin gooniyaha soo gelin marka waxaan jeclaan lahaa in dadka Soomaalida ee YouTube-ka iska dhex ay iska daayaan horta in iyagu isku mashquulaan ee adduunyada kale ku mashquulaan waxa kale oo aan idin hayaa ama gabagabadii barnaamijka ku jirna barnaamijka maanta aad buu yargaabay marka waxa kale oo idin hayaa afar heesood oo afarta heesood inuu wada daawadsiinaya haddii kale waxaan ku horay hurdaadan qabanay afarta heesood waxaan kusoo qaatay ama isu waxaan idhahdaa aan fahmi waaya sababta ay waxaas u dhaceen videoga loo soo duubay muxuu yahay afarta heesood waxay isaga mid yihiin videoga loo soo duubay mid walbana waxa loo soo duubay video tusaale kale meelo buuro bad magaalooyin caana iyo fanaankii oo ilaa waxaan arki jirnay in fanaanku oo halkan soo istaago oo video laga duubo oo isagii waxaan ku macnaha halkan hore soo taagay imka wuxuu ka baxay Soomaalidu waxay marayaan in dadkii ay daawadsiiyaan meelo waxaan ku dadku dalxiis tagaan iyo waxaas fanaankii waxaan ku background ku heesay marka dadkii ma waxay daawanayaan videogaas meelaha loo dalxiis tago mise fanaanka daawanayaan ma isweydiiyay idinkuna ra'yigiina wixii aad ka qabtaan saddexda heesood halkan ka daawada horta bal daawada saddexda heesood sida sabiga hooyadu canaha u siiso gadada isaarsa sida sabiga hooyadu canaha u siiso gadada isaarsa iyada sakarkiyo sinta ay ku qaadiyo sarabta u banaysay iyada sakarkiyo sinta ay ku qaadiyo sarabta u banaysay rayiga iyo weedha toosan untaan kugu doortay dhowrsan rabaa kugu laray hanaansan ma jiro ruux ka ilwaadsan rafiiqi baa tahay wanaagsan mujaalka u mudan intiisan anaa kugu raacay doogsan ma jiro ruux ka quluubsan naftayda la hadlaya intaa waan hiifaya naftayda la hadlaya intaa waan hiifaya hankaga waxaan ahayn kaguhiigan dhahaa sidii hadku lala sidii hadufka la arago samadu ehabaya horta waxaan isweydiiyaa la qaldaya dadku ma waxay rabaan inay daawadaan fanaankii oo heesaya ama fanaanadii oo heesasaan idhaahde mise waxay rabaan inay daawadaan ay sheeg meelo loo dalxiis tagiyo waxaas qofku haddii uu rabo inuu daawado meelo u dalxiis tagiyo waxaas toos buu tagayaa dee waxaan ku intuu tigidkiisa goosto laakiin maaha in dadka la qaldoon waxayna rabin la daawatiyo waxa muhiima in fanaanku uu soo istaago oo uu heeso aan ku soo noqdo barnaamijka sababtii aan u bilaabay Soomaalida celebritieskoogu maxay u badan yihiin horta fanaaniin kaliya u badan yihiin qof kale oo Soomaali celebrity oo la magacaabi karo waxa jira ninkan sawirkiisu halkan idinka muuqdo Barkhad Cabdi laga yaabo dad kale inuu magacooda ka tagay ama maahine aanan magacaabin oo aanan oranin qofkan laftiisu waa celebrity laakiin fanaan maaha laakiin waxaan rabaa un dadka inaan ogeysiiyo Soomaalidu inay waxaan ku wada dadka kale aan fanaaniinta ahayn laakiin celebrity-ga caawiyaan maanta barnaamijku intaas inoogu eegaya waxaan rajeynayaa inuu idin qanciyay waa inoo iyo barnaamijka dambe